diidmada lacagaha shilin Soomaaliga oo markii hore ku saleysnaa lacaga la sheegay inay yihiin kuwa been abuur ahaan loo soo daabacay ayaa horay kaga bilowday magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo ah magaalo ay degan yihiin kumanaan dad. waxay arintaasi saameyn kala duwan ay ku yeelatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Telefishinka Somali Cable ayaa u kurgalay saameynta dadka ay ku yeelatay iyo sidoo kale aragtiyada ay qabaan qaar ka mid ah dadka ay saameysay diidmada lacagta shilin Soomaaliga ah. dhibaatada ugu badan waxaa la sheegaa inay ku yeelatay dadka muruqmaalka ah iyo dadkii kale ee xoogsatada ahaa ee ku sugnaa gudaha magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan sida uu sharaxayo gudoomiyaha arrimaha bulshada ee gobolkaasi Sheekh Xuseen Cismaan Cali. runtii waxay u saameysay si aan caadi ahayn u saameysay casayaasha kamid ah oo hadda ila joogo way saameysay shahleedi way saameysay maqaayadan hadda waa ka restaurant halkaan ay ku taalaa way saameysay dadka muruqmaalka oo ama shaqaalaha oo ama fuundiga iyo faryaamada iyo waxa soo way saameysay dhammaan bulshada qaybadeeda kala duwan oo dhan lacagtaas aad u saameysay kadib markaan aragnay dhibaatadii ayaan ganacsatadii waxaan sameynay maamulka uu leeyahay shir degdeg aan la yeelanay anagoo maamulka ku boorinay inay shacabka u turaan ganacsatada aan ka codsanay inay u turaan shacabka inay shacabka u naxariistaan shilin Soomaaliga socodsiiyaan baryahan dambe shilin Soomaaliga sidoo hore ma aha laakiin meelaha qaarkood waa laga qaataa laakiin sidaan rabni ma aha waa ognahay sidaan rabni ma aha oo wili dhibaatada waa jirtaa shahleedii casayaashii muruqmaalkii kawaaleedii hilibleedii dhibaatada wili waa jirtaa sidaan rabni ma aha laakiin la tacaalidaan ku jirnaa la tacaalid ganacsatada markasta waxaan ku boorinaynaa inay marka lacagta qaataan dadka danta yar ee masaakiinta ah shilin Soomaaliga ay socodsiiyaan. qaar ka mid ah dadka ka xamaasha magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa dhankooda telefishinka Somali Cable kaga warbixiyay sida ay u saameysay lacagta shilin Soomaaliga ah ee la diiday. salaam bacdigeed waxaan macnaha ka cabanaynaa dhibaatada ka dhacday Beledweyne oo ahayd qaybta lacagta oo shilin Soomaaliga oo wax kasta la yiristo dollar aan lagu isticmaalo dollarkana macnaha Soomaali kuma filna baahidina ma dabooli karo shilin Soomaaliga u baahneen ku shaqaysan leen kabaan ku baalash leen ama cunto ku cilneen ama dadkii xoogsatada ama qofkii miskiin aan siin lahayn qof walba waa diiday waxa u yar nus dollar waxa u weyn $1 iyo intii ka sii badan marka waxaan ka codsanaynaa ummadda macnaha maamuladeeda madaxweynaha Soomaaliyeed gaar ahaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan gudoomiyaha Hirshabeelle madaxweynaha Hirshabeelle maamulka dila kureeyahay maamulka dila kureeyahay oo gobol ka tirsan oo dhan waxaan ka codsanaynaa in Soomaaliya shinkeeda la socodsiiyo oo macnaha loo istaago oo si macnaha wadanka uu u hirgalo shin Soomaaliga in lagu shaqeysto oo dollarkan macnaha waxba aysan tareenin in bangiyadii la dhiso oo shin Soomaali la soo saaro oo wanaagsan oo raas casir raas kabooni gaaro si Soomaaliya isku mid ay u noqoto shinkina wax macnaha qiimo leh oo wax lagu qabsan karo uu noqdo ummadina wax uu noqdo maxaa dollar inflation aan tan ugu sii dhacay maxaa dollarkii waxba ma taraag tullah ganacsatada waxaan aad uga codsanaynaa dadkii waxba la gada waayay casayga shaahi wax kasta iska horimaada dhacay waa si wax dhacday aan la isku raacsanayn waxaan ka codsanaynaa in si Soomaalida ama Beledweyne haddaan ka hadlaa dadka in loo naxariista Ilaahay kugu jecel qaanuunta kugu jecel sabarka ku jecel welijeedada jecel dhalinyarada iyo odayaasha iyo wax kastaba waxaan jecelnahay bulshada wada socodka isla qabsada wax kastaba inaan hadduu Ilaahay kula loo naxariisto oo la isku naxariisto. dhinaca kale qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan oo inta badan lagu eedeeyay arrintan ayaa sheegay in dhankooda saameyn ay ku yeelatay oo lacaga badan oo shilin Soomaali ah oo ay haysteen ay ku dhaceen. tan ay nagu yeelatay lacaga ganacsadaas dukaankaas yar aan joogo lacag 40 milyan oo shilin Soomaali ayaa iga dhacday waxay ku jirtaa kartoonkan hadda ku jirtaa maxaan ku raday iga qaabilana waan waay maamulka gobolka iyo wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka arrimahaasi makalahaasi kullay aniga mutagin wallahi haweenaan ahay mutagin laakiin ganacsatada iga waaweyn gobolka joogto. bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Ibraahim Yuusuf Macallin waxaan ka mid ahaa ganacsatada magaalada Beledweyne walaahi dhibaatada ay nagu yeelatay lacagta waxa weeyaan dhibaato aad u xoogan weeyaan guud ahaan bulshada ay ku yeelatay gaar ahaan dadka tabarta daran dadka taagta daran magaalada waxa weeyaan qaab kala duwan ayaa loogu noolaa
dad waxay ku noolaayeen nolol maalmeed ayay xoogsan jireen sida caseeyaasha dadka oo tuugsadoo kale dadkay ku dhex noolaayeen waxaa la waayay xitaa wax masaakiintii la siiyo ayaa la waayay ninkii maskiinka oo tuugsanaya markuu dukaanka yimaado ama qofkii u yimaado taleefon ma wada taawlaya nin maskiin ma taleefon gadan kara $10 ka kaco maxamed ciise maxamuud Somali Cable Muqdisho.